waxaa gelinkii hore ee maanta xarunta dhexe ee xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ka qabsoomay kulan kala warqaadasho iyo soxog waramid ahaa oo u dhexeeyay hogaanka xisbiga xildhibaanada labada aqal ee xisbiga ugu jira baarlamaanka Soomaaliya golaha fulinta ee xisbiga qaar ka mid ah xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga oo isugu jiray rag iyo dumar kulanka oo ujeedkiisu ahaa la wadaagid ay madaxda xisbiga iyo xildhibaanada la wadaagayeen xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga macluumaad ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka qorshaha xisbiga ee xaaladahaasi iskaashi xisbiga UPD uu la sameeyay qaar ka mid ah xisbiyada qaran ee dalka ka jira iyo kaalintiisa muuqatay ee madasha xisbiyada qaran dhawaana looga dhawaaqay magaalada Muqdisho xildhibaan Axmed Macalin Fiqi xogayaha guud ee xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in kulanka noocan ahi uu noqon doono mid bila ah oo bishiiba mar madaxda xisbiga iyo xildhibaanadooda oo wada jira ay xubnaha xisbiga la wadaagi doonaan howlaha xisbiga iyo guud ahaan siyaasadda uu dalku marayo madan lagu kala warqaato bishiiba marna halkan la isugu yimaado dadka waxgalka oo mas'uuliyiinta oo degmooyinka iyo maaragtay gobolada iyo dibadda nooga yimid iyo golaha fulinta iyo golayaasha kala duwan ee xisbiga inay bishiiba meeshaan isku arkaan ilaahay idinkiis laguna kala warqaato mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ayaa xubnihii kulanka goobjooga ka ahaa kuwa maqan iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga la wadaagay waxa ay tahay madasha xisbiyada qaran ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho iyo sababihii keenay in qaar ka mid ah xisbiyada qaran ee dalka ka jira ay madashan ku midoobaan madasha xisbiyada qaran oo ah isu tag xisbiyada Soomaaliyeed ee sharciyada loo u furan hase yeeshee ilaa hadda in ku dhow 10 xisbi ay isugu yimaadeen oo ay si rasmi uga midoobeen qaab dhismeedkeeda laga shaqeeyay oo leeyahay laga shaqeeyay sida ay maxaan ku raadin oo gelisay ujeedooyinka ay leedahay iyo waxa ay ka dhaxeeyo xisbiyada xisbi kasta ay ajandadiisa iyo barnaamijkiisu leeyahay laakiin haddana waxaa jiro waxyaabo xisbiyada oo dhan ka dhaxeeyo oo danta guud ee aragtida danta guud ee dalkan iyo dowladnimadiisa iyo sida ugu fiican ee hore ay ugu socon karta ah marka waxyaabahaas xisbi kasta u gaarka ah wixiisa waa leeyahay waana wadanayaa laakiin waxa naga wada dhaxeeyo ee na wada taabanayo maxaan ku yiraahdaa dalka iyo dadka iyo siyaasadda aan u taaganahay siyaasadda muxuu ahay ka qaybgalkeedu furan yahay waxaa naga dhaxeeya oo ayaan ka wada shaqaynaynaa xildhibaan Cabdifataax Daahir Ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo istiraatiijiyada ee xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo isagana kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in arrimaha siyaasadeed ee maalmihii la soo dhaafay taagnaa loo baahan yahay in la dul istaago si wada jir ahna looga howlgalo si buu yiri loo helo siyaasad furan oo badbaadisa qaranka qodobkooda waxa weeye arrimaha muhiimka ah ee taagan ee siyaasad ahaan ay tahay inaan ka wada shaqeyno dhammaanteen priority inoo ah doorkii nagaga aadanaya xisbiga ama baarlamaankiisa ha noqdo ama xubnaha fikirkiisa ku hadla ha noqdaane aan ka galnay falcelintii xukuumaddu ay ka samaysay oo qodobka saddexaada iyo waxyaalaha laga fili kara ka imaan kara khataraha ka imaan kara arrimahaas xildhibaan Cali Maxamed Cumar Cali Balcad oo xubin ka ah guddiga difaaca ee baarlamaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay in hogaanka dawladda ee hadda jira markii ay xilka la wareegayeen sidii loogu wareejiyay ay cagsigeeda ka dhigeen oo dawladnimadii la rabay in ay dhamaystiraan oo ay baahiyaan ay ku bedeleen burburinta wixii horey loo qabtay waxyaabihii la rabay xukuumadan jirta ee saxsan dambeysay ay ahamiyadda saar inay yahay oo aan aaminsanahay qaarkeed inayna saarin kan ugu muhiimsan wuxuu ahaa sugidda amniga iyo xoreynta goobaha shabaabku joogaan waxaan filayaa haddii aan maanta is weydiino ma jiraan goobo hor leh oo laga xoreeyay shabaabka 4 sano u dambeysay 3 sano u dambeysay waxaan filayaa jawaabtu waa maya as weydiino maxaa sababay horta dhinaca amniga dhinaca dhismaha ciidamadu waxaan aaminsanahay in ciidankeenu maanta uu ka xoog badan yahay uu ka tayo badan yahay uu ka tabar badan yahay kii joogay shalay ee lagu xoreeyay inta u dhaxaysa Ceelbuur ilaa Baardheer
way maanta ciidanku tiro ahaan kuwii hore way ka badan yihiin imkaaniyaasha ciidanka ay ku dhisan yihiin oo ah xerooyinka ciidamada iyo qalabka ciidamada kuwii hore maanta ka fiican way dadaalo badan oo hore loo sameeyey ayaa xerooyin fara badan lagu dhiso ay ka mid tahay xeradan Turkiga ka mid tahay xerada General Gordon ay ka mid tahay xerada mataqaana ay sheegeen dhaga badan iyo wax la mid ah wadanku inta ka tabariyar yaa la suurtageliyay in la degmo laga xoreeyo mataqaana shabaab xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo xubin ka ah guddiga dib u eegista sharciga doorashooyinka qaranka ayaa dhankiisa sheegay in xukuumadda hadda jirta tan iyo bilowgeedii ay ka cagajiidaysay dardargelinta sharciga doorashooyinka ee 2022 loo qorsheeyay in qof iyo cod ay noqonayso isagoona xusay in dib u dhaca imika muuqda uu ku yimid xukuumadda oo aan horeyba mas'uuliyad iska saarin qabsoomidda iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka dhacda waxay ahayd markii xukuumadda cusub ay timiday oo bilowgii waxa la sii diyaarinay bay in sharcigii doorashada la sameeyo isagoo markaa aragtidiisa iyo fikirkiisa jiro ayaa markaas xukuumadda cusub ay timiday laakiin waxa moodaa labada sano iyo barkaa waxay ku qaadatay inay hadba ka cagajiid siyaasadeed oo in la sameeyo aan la dardargelin sharcigii doorashada ayaa runtii dowladda weyn markaasi u keenay Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale xogayaha diiwaangelinta iyo baahinta xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo isagana kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xalka kaliya ee dalka lagu badbaadin karo uu yahay nidaamka xisbiyada qaran oo la dhaqan geliyo UBD iyo dadka yaa badan mis weydiina maxaa yeelay astaanta UBD waa calankan cagaaran halkaana waa cadya calankii Soomaaliya waa kana calanka Soomaaliya cirka uu eegay cirka wax ka badan ma jiro asoo xagga soo jooga cagaarka hadii lagu daro geedaha ka warama ma cagaaro geedaha UBD isku dar dadka la iga ka badan Soomaa haddii noqono dad awoodooda laga qariyay waa wax kale maroodiga waxa la wadiisa laga qasho marka qaar waxa ka kambada soo saas ma marka waxa la iska rabaa dalkan wuxuu u baahan yahay haddii aan xisaabta lagu badbaadin oo aan hore loo socon culaysku u badnaanaya Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamul goboleedyada ee xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ayaa waxa uu sheegay in dalka uu xaalad siyaasadeed oo aad u adag uu marayo loona baahan yahay in aan lagu fiirsan khaladaadka joogtada ah ee ay hoggaanka hadda jira ka galayaan dowladnimada Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka ayaa tilmaamay in xisbiga midowga nabadda iyo horumarka uu mar waliba u taagan yahay una taagnaan doono badbaadinta dalka UBD nabad iyo horumar
daliishaday dadka horumar gaadhsiinaya xisbi mudan dadaalkiisa danta guud midowgeeda xisbi doonayuu taagan maanta loo diyaaryahay kakutuubka noo sar maanta loo diyaaryahay kakutuubka noo sar dadka horumar gaadhsiinaya xisbi mudan dadaalkiisa danta guud midowgeeda xisbi doonayuu taagan maanta loo diyaaryahay